halkan dikri iyo halkan duco markaan aqriyay ilaahay nolosheedii oo idil ayuu ku bedelay. waxaa jiray deyman fara badan oo la igu lahaa oo aanan awoodin inaan iska gudo. sidoo kale waxaan ku jiray duruuf adag, dhaqaale hoose oo aad iyo aad u adagna waan ku jiray. nolosheedii oo idil waxay ahayd nolol cariiri ah. laakiin markii aan akhriyay ducadan iyo dikrigan, Allah subxaanahu wa tacaala deyntii waa iga guday. murugtii farxad ayuu iigu bedelay. xoolo fara badan oo baraka lehne Allah subxaanahu wa tacaala waa uu i siiyey. waa cajiib siday nolosheedu isku bedeshay. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. dhammaan daawadayaasheena sharafta leh ee ku xiran janalkeena, soo dhawaada walaalayaal, kusoo dhawaada maalin cusub iyo muuqaal cusub aad u xiiso badan. alxamdulilah, ilaahay subxaanahu wa tacaala ayay u sugnaatay nimco idil na siiyey awoodda aan ku hadlayno, aan ku soconayno, aan ku qabsanayno dhammaan baahiyaheena. ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu noo laazimo oo noo daa'imo nimcooyinka. qisaskeena maanta waa qiso cajiib ah. haddii aan u gudagalo qisada koowaad, waxaa inooga sheekeynaya wiilkani wuxuu leeyahay waxaa isoo maray waqti aan ahaa arday jaamacadeed, mushkilada aad iyo aad u fara badan. wuxuu yiri waxaa la igu yeeshay deyman aad iyo aad u badan oo aanan awoodin inaan gudo. waxa igu cuslaa nolosha, waxaan ahaa qof duruufaysan oo dhaqaale haysa uu aad iyo aad u hooseeyo. maanan haysanin markaas famil iga bixiyo, waayo aniguba waxaan la noolaa dad kharaabo ah. deymaha si tartiib ah ayay ugu galeen heer waxay gaareen aanan awoodin inaan iska gudo. deen inaan iska gudo iska dhaafay, aniga ayaa ku noolaa duruuf aad iyo aad u adag. wuxuu yiri markii intaasoo dhib i qabsatay oo aan garan waayay meelaan aaday waxaan sameeyo, ayaan waxaan laazimay inaan akhriyo istighfaarta astaghfirullah wa atuubu ilayh, astaghfirullah wa atuubu ilayh aan ku celceliyo. waxaan akhrin jiray ayuu yiri ducadan: allahumma inni a'uudu bika min alhammi walxazani walcajzi والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال. إيه استغفرت يعني أخرين جلايلي أستغفر الله وأتوب إليه. فضلي إلهي مدكوبا أو لبا بلود قدهود إلهي ديمه وإيقو قدي أو قف ونالسان أو محكن ayuu ii soo galay deymihii iga gudo, baahiyahaygiina ii daboolo, isiiyana lacag yar oo aan waxaan doona ku qabsado. alxamdulilah, wuxuu yiri lacagtii aan helay kumaan ciyaaray, waayo waxaan ahaa qof duruuf adag ku soo koray, kuna noolaa isla markaas garanayeen deyntii gashay iyo siday u cusleed. wuxuu yiri lacagtii waan dhaqaalaystay, ganacsi ayaan ku samaystay. alxamdulilah, waxaan noqday qof wax ay meel ka soo galaan, halka awal aan ahaa qof dad suga kaliya. qisadeena xigta maanta waxaa inooga sheekeynaysa gabadhaani waxay leedahay tijaabo ayaan ku arkay iyo mucjiso istighfaarta. waxay tiri waxaan haystay oo aan markaas dhiganayay waxbarashadii dugsiga dhexe. waxaa dhacday maalin maalmaha ka mid ah xilli imtixaan la gelaya inay familkeeni ay waayeen lacagta imtixaanka. wixii aan iskoolka meermeeriyaba markii dambe waxaa lii sheegay haddii aan biri lacagtaas keenin inaan imtixaankaas geli doonin. waxaan sameeyay ayaan garan waayay ayay tiri. imtixaanka wuxuu ii ahaa imtixaan final ah oo muhiim ii ah. habeenkii oo idil waxaan ku celcelinaya ayay tiri istighfaarta. subaxii wadaad adeerkay ah ayaa soo wacay, wuxuuna ii soo diray lacagtii intii aan u baahnaa. aniga ma weydiisanin umana sheegin. cajiib ayay igu noqotay ayay tiri sidoo Allah subxaanahu wa tacaala u bedelay nolosheeda. qisadeena xigta waxaa inooga sheekeynaysa gabadhaani waxay tiri waxaan maalin walba akhrin jiray istighfaarta 1 mar ayaan akhrin jiray ayay tiri, waliba xilliga salaada subax aan tukada kadib. ilaahay subxaanahu wa tacaala faraj ayuu iigu furay, albaabaha naxariistiisana waa uu ii furay. nolosheedii oo idil waa isbedeshay ayay tiri. waxaan noqday qof farxad ku nool oo kurbooyinkii iyo murugooyinkii haystay oo Allah subxaanahu wa tacaala ka fiiday. qisadan waxaa inooga sheekeynaysa gabar waxay tiri waxaan tijaabiyey oo aan arkay faa'iidada ay leedahay istighfaarta. waxaan soo maray ayay tiri duruufo adag, heer aan oon jiray maalin kasta duruufta iyo murugada ay haysatay darteed. laakiin markii aan laazimay istighfaarta, alxamdulilah, ilaahay arrimahaygii waa uu ii fududeeyey. weliba anigoo arkaya ayay si tartiib ah wax walba iigu hogaageen. qisadeena xigta waxaa inooga sheekeynaya wiilkani wuxuu yiri waxaa i haleelay duruuf lacageed oo aad iyo aad u daran. waxaa isoo maray waqti uu taleefankayga eber yahay oo xitaa hal santi ku jirin. duruufta aan soo maray ma aha mid aan ka sheekeyn karo, laakiin ilaahay wuxuu iga qaaday markii aan laazimay istighfaarta. weliba muddo kooban
ayuu iga qaaday. Qisadani xigta maanta waxa inooga sheekeynaa wiilkaani wuxuu yiri wiil aan saaxiiban lahay ayaan waxaan ka maqlay inuu ku faa'iiday istighfaarta. Aniga waxaa la igu lahaa ayuu yiri deyntaasi way badneed inaan iska bixiyana maan awoodin. Habeen walba murugo ayay igu ahaan jirtay, subax kastana cabsi ayaan ku noolaan jiray. Waayo markii aad tahay qof deyn lagu leeyahay, habeenkiina murug ayaad ku noolaanaysaa, subaxdiina dulinimo oo qofkii deynta kugu lahaa ayaad ka walwalaysaa. Laakiin markii aan bilaabay oo aan akhriyay istighfaar maalin walbana aan akhrin jiray 1000 mar oo kaliya, alxamdulillaah Ilaahay deymihii waa uu iga guday, kurbadiina waa iga qaaday. Waxaa kaloo dhacday in aan dhacdo kale ka arkay istighfaarta. Wuxuu leeyahay wiilkan baabuur qaali ahaa oo aan badeyn ku soo qaaday ayaa iga halaabay. Waxaa la ii sheegay in lacag fara badan lagu sameynayo. aad ayaan u murugooda ayuu yiri. Waxaan bilaabay inaan akhriyo istighfaarta. Wiil aan saaxiibanahay oo farsamayaqaan ah ayaaba yiri anaa kuu sameynayo waliba lacag aad iyo aad u yar. Alxamdulillaah ayuu yiri, Ilaahay ayaa ii soo diray, waxaana helay natiijadaas markii aan akhriyay istighfaarta kadib. Gabadhaani waxay leedahay istighfaarta wax walba oo khayr ah ay dadka u soo diidaa. Ilaahay ayaan ku dhaartay waxaan soo maray nolol aad iyo aad u mugdi ah una madow. Waxaan dareemay in noloshan aan rajo damba ka lahayn, laakiin markii aan ogaaday faa'iidada ay leedahay istighfaarta waliba aan laazimay aan la akhrinayna suuratul baqara, alxamdulillaah Ilaahay subxaanahu wa ta'aala wax walbo dhibaato ah iyo wax walbo culays ah iyo wax walbo oo murugo ah oo i haystay waa iga qaaday ayaa leedahay gabadhan. suuratul baqara nabiga sallallahu alayhi wasallam ayaa inoo sheegay faa'iidada iyo barakada ay leedahay in ay noloshaada ku barakeynayso. qisadan xigta maanta waxay inooga sheekeynaysaa gabadhaani waxay tiri waxaan ahaa gabar fool ah oo bilaheeda dhamaysatay. markii aan bilahayga dhamaystay ayaa waxaa dhacday dhakhaatiirta inay ii sheegeen ilmahayga inay biyaha ku yar yihiin oo xal kale aan lahayn, kaliya qalliin aan leeyahay. anigu waxay tiri aad ayaan qalliinka uga cabsanayay, haddii aan diidana waxaan u baqayay ilmahaas inay igu dhintaan oo ayagoo meyd ah dhow haddana la igu qalo. meel ayaan fadhiistay tiri anigoon awood lahayn. Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ayaan gacmaha u horsaday, waxaana ku celceliyay astaghfirullah wa atuubu ilayh, astaghfirullah wa atuubu ilayh. nus saac ayaan meel fadhiyay. waxay leedahay xitaa isbitaalkii kamaanan bixin. alxamdulillaah fool ayaaba igu soo booday oo nabar ayaa i qabtay, si caadi ah ayaana u dhalay ayay tiri gabadhan. alxamdulillaah Ilaahay qaliinkii waa iga badbaadiyey, ilmahaygii waa ii badbaadiyey, ilmahaygii oo caafimaad qabo, anigoo caafimaad qabo, alxamdulillaah nus saac gudahood ayaanba ku dhalay ayay tiri. waxaan aad u akhrinay istighfaarta, niyadeyduna Ilaahay subxaanahu wa ta'aala waa uu ogaay, waayo waxaa niyada ii wajirta Ilaahay subxaanahu wa ta'aala oo kaliya inuu yahay qofka awoodda iska leh. alxamdulillaah Ilaahay kurbadii waa iiga qaad, anigoo nabad qaba iyo awlaadaydiina nabad qabto. alxamdulillaah qof walbo Ilaahay subxaanahu wa ta'aala isku xiro oo Ilaahay ku kalsoonaado ma dayacayo. Allah subxaanahu wa ta'aala wuxuu quraankiisa ku leeyahay فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. الله سبحانه وتعالى وحuu leeyahay dambi dhaaf weydiistaan idin dambi dhaafay. runtii istighfaartan nimcada ama faa'iidada koowaad ee laga helo waa in Ilaahay dambiyadeena noogu dhaafo, waayo qof walbo bini aadan ah dambi ayuu galaya. haddii la ihlaha dambigaaga ama dunuubtaada lama dhaafayo aad ayuu adkaan lahayd. waxaa kaloo ka mid ah nimcooyinka aan ku helin roobka. waxaa lagu jiray xilli kuleelo in qof walba uu roob helo uu aad iyo aad u danaynayo. waxaa jira dad baadiyaha ku nool oo roobkaba la'aantiis aan wax beeran karin, quudna aan helaynin. haddaba nimcooyinkaasoo idil ayaa lagu helaa. waxaa lagu helaa awlaad, waxaa lagu helaa xoolo. Ilaahay subxaanahu wa ta'aala nimcooyinkiisa idil ayaa lagu helaa. Ilaahay hanuu dambi dhaafo, hanuguna casuumo jannaat alfirdowsi alaclaa. waa mahadsantihiin walaahi rajacayl. muuqaalkeena maanta halkaa ayuu ku egyahay. haddaan meeshan soo gaartay muuqaalka like saar si walaalo badan u gaar uguna faa'iidaystaan. qaybta hoose commentigan aan kusoo qorno. saliga xabiibkeeda Maxamed. wassalaamu calaykum.